الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكسر هذا برنامج كان مضشة على أبوكار برنامج كان تضبط كان وحاي ومرتيا فنانات عد كذا آد وتقانان هي صدور ويقاتنا أضمض حاول وحدنا مركب غشان وطمع هرت إلارك سارة أحمد عبد الله والله يقانو سارة إليس سارة السلام عليكم. عليكم السلام ولا لا وياي سارة أحمد عبد الله سارة إليس سارة كسر برنامج كان مضشة على أبوكار وندوي ولا لا أدبض محطتها waxaan jeclaan lahaa in taariikhdaadii fanka muddadii aad kusoo jirtay aan kaaga wareysano barnaamijkan laakiinse waxaan jeclaan lahaa intaynaan guda gelin bilowga taariikhdaada bal hadda codka aad ugu jeceshahay heesahaaga ku luqee heesahayga horta runtii heesahayga ma kala jecli laakiin maxay tahay kulli bidii qaar un baan sii jecelahay waxaa ka mid ah hees la yidhaahdo dhalintii gayaanka hees kaloo isna la yidhaahdo maxay tahay bisha caawa ku dhalintii gayaanka bal luuqdeedii hadda xasuusi dhalintiyo gayankaba midkii aan dhammaantood kala soo dhex baxayo dhaxdiinan ka sugayo dhaxdin aan ka sugayo markii aan ku dheehde dhayo ku daawado dhagar qaba jacaylo dhedbadaad kaysta adigu igu dhalisaaye balse inaan dhigayo asagay ku dhereersado dhibtahaygu eegine idheganuglow waqtiga haygu dheerayn taas iyo waa ka mid ah waayahay saare axmed cabdullaahi saare ilays codka aad u macaan waxaan filayaa dadku inay garteen iyaguna muusiga ku darsadeenba intii aad ku luqeynaysay aan ku bilowna xaggeed ku dhalatay والله أنا بروح نقول شيء تكتيكا. مركبة تكتيكات كبر بارتي ودن كيتوبيا. ما يقول على حق يسوق كبر بارينه. يران تادي وقتي مركي حقنا. أنا بقول يربى حق المدة. غير كي يقول حق يمدين. بدنا لقنا كبر باري. مركا لك لقى حين وانا كنت حاجة صارنا. مركا سيدي كورا تيجينا فنك كوبيرتو أو هستو. ورترنتي فنك وانش على ولا فنانينتي ووينيدي هري سجرتي. أيان aad u jeclaa runtii heesahooda u dhageysan jiray markaas ay igu dhalatay marka inaan fanaanad noqdo iyo tomartay xilligii waxbarashada ardaynimo iyo iskuul iyo ma xagaa wallahi ardaynimo aadana ma soo marin waa xagaa saaqadad baan ka way fursad baan u helin waxaad ka warantaa fanaaniinta kugu dhiirigeliyay kooyba kamid ahaa marka ay heesto fanka runtii waxay ahaayeen ilaahay u naxariisto cabdi kaamil awaale abwaan loo oran jiray u dhintay markii اسكان هيقولون أنا تلاني كلويان عن حيث ياسين أحمد دكفير يا كم ده ربي يقول لي أنتي أنا ضحيسين أنا ضغون هيسا أما بقى أنا تكقيب قلين أنا تصوف لسان ميكروفون واحد كور أنت هيسي فنانين تكلا مدقيسين جرتي سهر أحمد يا كم ده قدر ظاهر سادة علي حسنان سمطر فنانيتي وين دورتي هذا الشعلا هسه كتشعلي مع الصوت هي سعودي كل قارة سنة كيف كمل أرتها سوي هرية مركي أفكر سوبيري إن لقى قاعدين إن هي سكرو هي سارة أحمد لا ده هيو أنك مدوبه لا يرهده أيه هاي أنك مدوبه عشق دريني وهولي قمداي هس كتلاقي قاعدين تجابدي قوليس عدك اللي جاي سهرة ما حصوصتها هستي كوجو ريسي يعني عيد كلا قاعدين عدو والله هيد تفنك كوبي لوضع وهس كان ليدا ده يقول نحن نتلعن أنا يديك في الوضع قادنا أنا جهز أنا يقول أن لا هي أن قاعد يقول ريسي ويا هست ترى هيقول نحن نتلعن عد كذي أضرب أنا حسوسي كرا هيقول نحن نتلعن وظلموي البعيد كوسيسا هندو دباتيو هموك مريبان انتي يوم الكنا ادد حالة معه ادوري قويو لهلا لوايا وطاس وي هي ياسين احمد دكفر بكرو خالص الله نحرسته الله نحرسته waxaan weydiisanayaa farsamayaqaanka barnaamijka maaday heestaasi muusigeedii iyo qalabkeedii dhow wadatay iyo codka isku lifaaqan in uu
ina daawodsiiya dhammaanteen. وظلموي البعد كسيسا حندو بباطيو هموك مرهبان وظلموي البعد كسيسا حندو بباطيو هموك مرهبان يوم الكنا تتدحال معه هدواري قويو لحلا لوايا حنتي يوم الكنا تتدحال معه هدواري قويو لحلا لوايا أبكى عاشقيننا هدوب عانا لقشوبي I love Eleni, what the high Sawayan, what the high Sawayan. Abka عاشقيننا هروب عن اللب شوبي. I love Eleni, what the high Sawayan, what the high Sawayan. كويبيو هدفك نواتن هوري كوغو راعو هانتي كوغو منعي كرو هانتي كوغو منعي كرو نفتن كويبيو هدفك نواتن هوري كوغو راعو هانتي كوغو منعي كرو هانتي كوغو منعي كرو Sara aan si aan baqaado waraysigii iyo su'aalihii ku saabsanaa fankaaga heestii labaad iyo tii saddexaad iyo xilligii aad ka qayb gashay fan balaaran oo sida riwaayado kala bal hadda noo bayaani horta walaal fanka marka aan ku biiray aan ku sheegay kulay heeskaas iyo iigu horeeyay riwaayad la yiraahdo shankooda jacayl ku sheegay oo Itoobiya lagu dhigay baa aniga iigu horeysay riwaayadan dhigo marka ma jiraawad ka ahayd ما يروح حسابك لكن أكثر ضحى كاهد وبحتاهر مركا أنا روح أنا حسا يسنح من تكفير بالليسي مركا حسا من بكبيرة حس كان حس كلا أنا صباح إمك أودي روادة سكوتشرو روادة دبديد أنا لقادن روادة كبر يسنوه روادة يقول يسنوه وياهي هسه أنتي هرجيسة تشوفتي نكى bilowday fanka heesii aad imka ku luqeynaysay tan digfir haday noqoto tii koorisay haday noqoto maxaa kaaga dambeeyay runtii heesa badan bay iga dambeeyay markaan halkan imiday hargeysa markaan imiday waxay gacan qabtay ilaahay u naxariistay jaamac cabdillaahi oo kadleeye anab diiriyo way joogtay ayaa maxay toy qoliyo gacan qabtay halkan markaan imiday bay ahayd heesa fara badan baa la sameeyo kadleeye kamid ahaa heesa la sameeyay heeskan aan ku sheegay dhalintii gayaanka iyo heesa fara badan baa la sameeyay kadleeye la xirtay lahaa heesta biya may dhalintii gayaanka soo muu lahayn laakiin heesa kale lahaa isagu marka fanaaniinta gacan qabatay waxa tiri xanad diiriye yaa kale kadleeye falaash tiriig xaashi wadaadkeeda maxamed jaamac markii fankaad ku soo birtay fanaaniintu codkaaga tijaabinayeen xaggee lagu tijaabiyay codkaaga jigjiga ayay ahayd waxay tijaabiyey maxamed yuusuf ilaahay u naxariistay fanaankii weynaa maxaan ku dhahay cabdi kaamil yaasin axmed digfeer nin la yidhahdo aadan booway badnaayeen niman fara badan baad iga qaaday maxay tooy tijaabada gormad istuhuntay oo stiri cod baa kugu jira oo waxa tahay maxay qof cod wanaagsan oo heesaheeda loo soo joogsanayo dareenkaasi ma ku galay marna horta runtii intii aan Itoobiya joogay markaan fanka ka bilaabay dee way ugu cusbaa waxani marka muusig lagu tumayo marka dadku meelaha guriga dhexdeeda keesi sorto kala laba
marka aad guriga dhexdeeda ka heysatid adiga is xukumayo wadka guriga dhexdeeda ka heysay laakiin marka muusig lagu tumo dee waa kaafiye kala dheeri runtii muusig baa lagu tumayaa maxay tahay dhex taalo muusig la tumo waxyaabahaasoo dhan ayaad baranaysaa horta runtii aniga waxay igu daray riwaayadaan kuu sheegayo habeenkaanu dhegayna ayay igu daray waayo masraxna ismaan soo taagin intaasoo qof oo tiyaatar ku jirto soo hor fadhidana meel haysi markaa dhibay kugu ahayd aad iyo aad dhibay igu ahayd heeskii aan qaadayo waan iloobe markuu digfeer beedkiisii galay halkan anigu beedkaygii ka geli lahaa muusigii uu iska socday waan ilaabay markaas xasuusan karo waayo mee dadkii baan ka baqay bay soo hor fadhiyeen dadkii markiisa ay soo wada eegeen ayaan gebigaygu banaxay deedna digfeer baa xagga dambe iga maray ereyga horreeyay uu ii sheegay sidii baan ku galay markaa qofku marka uu maxay tooy ay fanka ugu horeyso horta aad bay u dhibadantay laakiin markii dambaan siri wad heesi kartaa markaan Itoobiya ka tagay 2000 xamar baan tagay xamar baan sir wala wad heesi kartaa in ka heesi kartaa laakiin Itoobiya ismaan lahayn finaad bad noqonaysa marka dee ma jiraan heesii fanaaniintii waaweyneed ee ka mid ah Qadar Daahir Saare Axmed iyo kuwa badan oo soo sheegtay marka dhageysan jirteed guriga ka dhaxeysayso codka cod ahaan ma adiga istuumay mise waxa lagu yiri fanaanad bad ku wanaagsanto dadka ku sheegay maya in de kulli hablaan asxaabtana aynu saaxiibkana hayo markaan dhageysan jiray buu oran jiray wallahi Saare wad heesi kartaa nahaylu goynina baa ku oran jiray ma heesi karaa haddana markii habluhu iga tagaan ayaan soo jiray wad heesi kartaa markaan ruwaadaha daawanayna waxa la soo jiray toloodna goormaad sidaa u heesi doontaa oo dadku sidaa ku daawan doona dadna markii dambe waxaan ogaaday inaan heesi karo inkastoo aad igu dhibanaado anigu runtii fanka aan soo maray dhibaatooyin aad u fara badan Saare marka heesaad qaadayso oo aad bay u dhib badan tahay مثلا qaybisteeda erayada music hadana qaybistiisa wixii oo dhan inaad maskaxda ku wada hayso weeyaan oo la socoto xataa raadaynta music ama rhythmka ka hor sidee kugu qaadataa markaad in hees lagu qaybsiiyo horta runtii walaalo imika waxbay ugu qaadato imika dee kulley dhowr iyo 10 sano kusoo jiray fanka markaa maxay tahay imika waxba dee laxan muusigii laxankii wixiiba dee haddana anagu ba sameeyay inkastoo wali isku eegin inaan sameeyo haddana maxay tahay aad baan imika u fiicanahay laakiin mar aanan dee aan kaba baqan jirin inaan xitaa anigu heeso ayaa jirtay waalidku ma ku ogolaaday mise waa isku khilaaftay inaad fanka gasho anigu runtii markaan fanka ku jiray 2 sano markaan ku jiray jigjiga Itoobiya ay reerkaygu ogaadeen inaan fanaanadaha runtii qolyahayga Itoobiyana macnaha reerahan ka dhashaan fanka baba yaqaana way la yaabeenba fanaanada ahaa oo fanaanadu maxay tahay hooyadii waxay ogaatay markaan 4 sano ku jiray fanka inaan heesiyaan waliba hargeysa markaan imiday ayay hooyadii ogaatay Itoobiyana idaacadaha iyo waxa dee kulay badada lama dhageysto markaa hargeysa markaan imiday hooyadii ogaatay inaan heesaan oo idaacadana hargeysa ka maqashay oo lagu yiri inanta diba heesaysa asatiinteedu ma heesto marka way la yaabtayba ha adigu waxa ma sheegin waa ka baqanay way yaab manuri may walaal haba ma taqrib Saare waxa jira had iyo jeer qofka dhacdooyin ba soo mara taxanaha noloshiisa dhacdooyinkaasi waxay ku qotomaan kuwa farxadeed kuwa murugo iyo kuwa wax kala baabuura adiga ma jira suugaan aad cidi ku samaysay oo ka turjumaysa raadad ku soo maray adiga hore way jiraan runtii waxa kamid ah hees leeyahay bisha caawako runtii sheekooyinkaasina midanaga dee Xuseeniye bay ahaayeen midana imika aad uga sheekeyn karin weeye way kuba weydiin mayno inaad ka sheekayso waa taas waa shakhsi laakiin heestu ma doonayno na xusuusiso كانوا كلنا صنع بلدرين كاسوين وهامي قطلة. هذا كوا حلا هذا بيشو عواكو ويبيلت يوجد بالخير بانا لي هاي وحسي قبال شرا ناقة حبر باتشرا انتو باري كورسدو بسم الله سواي كيجي برتو شرو إيجو بيج الله يو بالي ده
taasi iyaba ka mid ah يا سوي waxay sameeyeen in la yiraahdo kayd ilaahay naxariistay rajigjiga ah uu dhintay imika laxankana waxay iskale digfeer balaha marka waa jacayl kulli dareen jacayl ma loo kala soo waa jacayl de kulli maxay toy meelaha dhexe barnaamijka madasha halabuurka martida Sahra Axmed Cabdullaahi Sahra Ilays aan si aan baqaado su'aalihi aan u bandhigayay ee barnaamijkan ay ku salaysnaa noloshii fankeeda oo ilaa maantana ay ku guda jirto Sahra ma qaadaa heesaha wadaniga ma qaadaa kuwa munaasabadaha kale imika betelan waxaan ku jirnaa bishii barakeysnayd ee Ramadaan weli ma qaadaa hees khusaysan bisha barakeysan Ramadaan aad iyo aad marta runtii aniga qasidooyinka aan qaada iyo heesaha wadaniga qaadiyo malaha jacaylku baa ka yara badan maxay tahay qasidooyin fara badan ma qaada maxay tahay wadanigayguna waa aad bay u badan bil barakeysan meel ku jirnaa bal hadda qasaydkaas ku noqo runtii qasidooyinkaas way badan yihiin laakiin waxaynu u xilsaaraynaa maadaama aynu u xilsaarnaa isagaa haya qasidooyin fara badan oo lagu qaado way hal daqiiqo aan ku soo noqono نارها بالبلا ربنا قبندي بيرها جندا ربي نوبل بيكسد الليلي بيرها جندا ربي نوبل بيكسد الليلي شوابشي نارها بالبلا ربنا قبندي بيرها جندا ربي نوبل بيكسد الليلي بيرها جندا ربي نوبل بيكسد الليلي وقارو أداها أبي بركة لكم بلك بدن بش سونغشين برخدي دا بدن فقرو نسي 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 وقارو أداها أبي بركة لكم بلك بدن بش سونغشين برخدي دا بدن فقرو نسي برخدي دا بدن فقرو نسي markale wadaniga maxaad ka qaaday Sahra wadaniga walaalo aad bay u badan yihiin hees la yiraahdo dawlkii xurriyadda hees ugu dambeysay oo aan wada qaadaynay maxay tahay Jubba oo isna wadanaya oo Soomaaliland ka hadlaya Hargeysa iyaga u dambeeyay runtii waxaan qaado marka ma kuwa maxay ka hadlayaan nabadda ka hadlayaan waxay ka hadlayaan wadaniyada waxay ka hadlayaan horumarka nooc maya waxay ka hadlayaan horumarka ay hoobo eleeyoy Hargeysay ma nabad baa eleeyoy ay hoobo eleeyoy waa horumarkiini eleeyoy wadaniga horta intii kuwii ugu dambeeyay taasaa ka mid ah wadaniga aad bad xasuusan aad iyo aad baan xasuusanahay marka maxay tahay way badan yihiin runtii wadanigu
dawalkii xorriyadda ka mid ah aad bay u badan yihiin heesahayga wadanigu saara dibadaha muu baxday maanigu wadamada dibadda may walaalo maran abdabi gaadhin mooyaane mar kale meel kale uma bixin ma jiraa sugaan lagu soo sameeyey dibadda oo kale matalan oo si ka duwan siyaabahan oo u qaabaysan qaar dibadaha laygu soo sameeyey macna ma erayada laygu soo sameeyey bise muusiga iyo waxay wada socda may walaalo erayo aan bilaalaxana ayay badada ii soo diraan oo aanu qaada dibadaha laakiin iyagoo macal muusigii wato laxankii wato wixii wata weli ma jirto laakiin heeskan dawankii xorriyadda ayaa iyadoo macal muusigeedii kama lagu tumay xaggaa la iga soo diray abwaanka sameeyena xamar buu joogay erayadu xaggaa u diro xaggaasa lagu soo laxamiyey qoomaal baa soo laxamiyey qoomaal macnaheedu qoomaal waayahay adigu muusiga ma jeceshahay maanigu aad iyo aad midka noocee aad ku sii jeceshay maanigu mid qabow mid kulul durbaanka hallaa bismillah horta runtii muusigana aad baan u jecelahay kamankana runtii horta waxaan ku heesa waxaan ugu jecelahay anigu kamanka laakiin muusigina de waa lagama maarmaanoo mar haddii aad maxay tahay ama arooska heesayso ama xafladda ama maxay tahay heesaa jacaylkaba markaa tumayso dee dadkuma wada dhegaysanaya kaman saambadaan ugu jecelahay maxay tahay muusigana maxay tahay de kulley kan maxay tahay kalana kama lagama maarmo kulley isaga laftirkiisu de heesaa saamba lagama wada dhigaya mas leedahay mar uun ha noqotee muusiga waa tumi doonta aniga de horta runtii hamiga ma leedahay insha allah waa ku hamiyaa runtii awal dee maxay tahay qalab iyo waxba toona maan lahayn laakiin imika xoogay qalabaan ayaan uriyo marka waxaa isleeyahay tijaabo ku jira ama kamanun ha barto ama orgon wuxuunba kulley tumi doona haddii lahayna marka waxaad filanaysaa adigoo keligaa isku tumaya anigoo keligaa isku tumaya ha waayo dadkiiba imika dee horumar bay gaadheeno maxay tahay gurigaaga dhexdeedaad ku tumanaysaa waxaagiiba guriga dhexdeeda ku garanaysaa wixii baadaa nadaamsanaya marka runtii de macalinka weyne aan runtii waalid baanu haye maadey ayaan isle insha allah haddaa la yidhaha isaguna xagga aha kaa caawiya haddii la yidhahdo xagga ididgaraynteesaayo waxaa ku dheereeyay waxaad ii sheegtay bilowgii iswareysigeena in jaamac cabdillaahi uu kadlay allah u naxariistee oo fanaan caan oo la wada garanayo inuu aad ku gacan qabtay heesaha uu ku sameeyey mid ama laba ayaan filaya inaad ka xusutay ma jiraan heeso kalaad xasuusan tahay oo abwaankaasi ku sameeyey wallahi way jiraan heeso badan oo maxaan ku dhahdaa uu ii sameeyey qaarna waabay tuma yihiin oo waxaa ka mid ah geegiyo dalkeedna baagesiyada ku noolow googin huna googin Sugar, yeah.
hadlaysaa maxay tahay ragga iyo dumarka ayay ka hadlaysaa dee horta imika waqti baynu ku jirnaa hablaha berigii hore waxa laga bixin jiray geel iyo qori iyo ayaa laga bixin jiray imika laakiin waxba la soo weydiisanay dee gabadha ugu badan waxa laga bixinayaa inkastoo imika hablihii dee dibadaha laga soo doonayo raggii dalka joogay baa habluhu iska ilaaween haddana maxay tahay inagu berigii hore waxaynu ku xisaabtami jiray qori iyo xoolo laga bixiya gabadha imika waxaynu ku xisaabtamaynaa maxay tahay internet kama gashay deedo wiil xagaa jooga ma la xiriirayo arrimahaasaynu ku jira marka gabadhii laga bixin jiray geela iyo maxay tahay xoolaha laga bixin jiray imika waxa laga bixiyaa lacagtii laga bixiyayna reerkii waxay ku rogayaan un xeeriyo marka arrinku imika halkaas u maraya marka anigu waxaan ka hadlayaa maxay tahay hablii laga bixin jiray geela iyo qoryaha iyo laga bixin jiray ayuu hees ku ka hadlay heesaha tiradooda ma taqaana wallahi walaalo maxay tahay tiradaa garan maayo ma malayn kartaa horta kulley bay imika markaan isku geeyo wadaniga iyo jacaylka iyo qasiidooyinka may ku daraa jacaylka waxay kamid tahay xaawan bay heesuun bay kamid yihiin soo maha kulley ilaa malaha dee 100 kor way u dhaafeen heesaa markaan tiriyo waayahay kaani qiyaastii daani heesaha matalan ka hadlaya kuwa dabacsan ee jacaylka iyo waxyaabaha ka hadlaya agwaanada ku sameeyey haddii aad inuu xasuusan karto ma waxay u badan yihiin farxad ma waxay u badan yihiin murugo erayada iyo macnaha heesaha ku jirta aad qaadaya jacaylka ma deegaankay ka hadlayaan ma abaartay ka hadlayaan oo maxay ahayd dhulku abaaroobay ma dhulku barwaaqa ma cadceedoo kulul maxaa bal intaa sifayaasha mid ka qaad intay u badan yihiin boqolkaa heeso boqolkaa heeso horta way isku wada jiraan heesaha ka hadlaya maxay tahay imika betela waxaad ka soo qaadaa hees cali barre xuseen sameeyey oo ka hadlaysa dhulkii bay ka hadlaysaa dhalinyartii oo dhoofaysay ka hadlaysaa dhirtii oo la goynayo ayay ka hadlaysaa heeska waxaa dhan unba hooyadaaya ayaa la yidhaahdaa anunba hooyadaaya marka weligaabay wax kasta sameeyo wax kasta sameeyo haddaad doonto dhirta goo haddaad doonto dhoof dee waxa doonto sameeyo anigunba hooyadaaya macna dhulkii baa hadlaya heestaasaa isku wada qaadanaysa heeskaasoo wax walba isku wada qaadanaya ayaan anigu maqashay heesta saara haddaad hawshayda diido haddaad hagratood ilowdo nimcada ku hareera taalla haddaad hoos u egi waydo horumarka tiigsan waydo wax soo saar kaa habsaamo dadnimo ku hagaajin waydo anuunba ku haweyno anuunba hooyadaaya huqiya hawlaygu reebtay اسكو تاسو كهادليا قبعدي waa inta marka waxay ka hadlaysaa dee qabacada kale marka waxay tahay mid dhirta la goynay ka hadlaysaa taas baraday baqashay hadda dhirta hoos ka goyso hadda dhirta hoos ka goyso hadda horta beedkaas uu iga mar hore horta heeska ugu dambeysay qabashadeeda marka maxay tahay inta beedkaas uu ka qaado kulli laakiin wixii wada xambaarsan tahay dhirta la goynayo qofkii dhoofiyo dhalinyarta wadanka diidayso dhoofaysa murugada teeba boqolka keentay macnaha teeba u haysatay murugada heesaha wallahi deeqsi horta anu waba nacay runtii heesaha murugada la qaado ma qaado runtii anu heesaha murugada laakiin heeskayga ugu murugada badan leh ee aad aan macnihii aan ugu fikiro oo macnaheedu sidoo waxa ku jirta jacayladun baan anigu runtii dee murugooyin laakiin wax kale oo aan ka hadlo dee aan ka murugoodaaba dee ma jirto inkastoo dee dhibaatooyinku iska badan yihiin teebas leedahay saayid baa ku jira horta laba heesba weeyaan mid waxaa sameeyey waa heeskaan ku sheegayo dee bisha caawako oo arrimahayga iyo waxyaaba fara badan oo ku jira iyo waxbay dee ka turjumaysaa midna waxaa sameeyey maxay tahay xasan geni xasan xaaji cabdullaahi xasan geni baa sameeyey isaguna dee jacayl buu ka hadlaya lagwaaka weyn xasan xaaji cabdullaahi xasan geni heesta uu sameeyey ma xasuusan kartaa luqdeedii miyan geedsiga dhabta dharar loo ay jirin miyan dheelmadihii tegay qaarkooda caashaqa u dhiman taasiiba ka mid ah luqdeedii waa sidaa marka eraya kale oo badan baa ku jira heesayga macna calaacal xagga jacaylka ka calaacalaysa dee heeska bisha caawa ku iyo taa labadaa mid baa ku jira waxa kaloo dhan
maxay toy waa in waxay saacadiya way sahra wali waad xataa hay dhalinyaro heesaana wax moodaa inay kobceen oo aad ay u bateen oo laga yaabo maxay ahayd 10 sano ka bacdina dhowr boqol kala sii dhaa isleedahay fanko ka saacadaas horow si soco may walaalo de horta hadaan dhiman ka harimayo fanka de runtii iska galan runtii u jecelahay maxay toy de markaan gaboobo lacala laakiin imika ma harayo caruur maxaa jooga caruur walaalo afar kholodan leh iyo saygii xaaj waayahay Sara Ahmed Abdullahi Sara Ilays oo barnaamijka madasha hal-abuurka ku wareystay shakhsiyadeeda iyo marxaladii nolosheeda iyo sooyaalkii fankeeda oo dabcan heeso badan ay maqashiisay aad baad u mahadsantahay Sara Ahmed aqbalaadda naga aqbashay dalabka barnaamijka madashaan kugu yeernay dawadayaal idinkan waxaad leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh